naagtana u jeedin iyadoo camoolaha waxay go'aansatay inay nafsadeeda disho waliba iyadoo rabtay inay meeshan iska tuurto laakiin labada nin oo meeshan darbiga xalay seexda midkood kamid ah arkay kadib wuxuu bilaabay inuu saaxiibkiisa hurdada kiciyo isagoo tusinayo midii istuuri rabtay boorsadeeda ka dhacday kii hurdayna waa kan hurdadii dhana ka baaba'day markii uu boorsada arkay hal mar intuu ordo boorsadii meesha taale soo qaatay waa kana isagoo raba inuu meesha isaga cararo laakiin midkii saaxiibkiisa ayaa intuu qabto wuxuu ku dhahaa adiga maxaa ka qaldan qoftaas caawimaadkeena u baahan tahay hadda iyada nafteeda dil rabtay boorsadeeda u celi laakiin isagoo hadalkiisa ma sii dhageysanayay boorsada u cadeed meeshana wuu isaga cararay midkan qoftii oo diidan oo meesha ka soo badbaadiyay waxay weydiinaysaa aniga maxaa ii badbaadinaysaa maxaa u raaci weyday saaxiibkaaga tuuga ahay oo aniga boorsadeeda la cararay isna waa karaayo intuu ka shikiyo qoftan inay camoolo tahay in kale wuxuu ku dhahaa sidee ku ogaatay inuu saaxiibkii boorsadaada ka qaatay waxay u sheegaysaa inay camoolo tahay sidoo kalena ay dareemayso waxyaabaha agagaarkeeda ka dhacayo ugu dambeyn midkan intuu ka raali geliyay wixii uu saaxiibkiis ku sameeyay meesha isaga tagaa laakiin iyada hal mar waxay ku qaylinaysaa ma rabtaa inay kambani weyn yeelato isagoo u maleeyay inay ku kaftamayso wuxuu ku dhahaa waa ogolahay ee markii isii hadda kambaniga ugu soo wareeji intay soo waday gurigeeda keentay kadib waxay ku dhahaysaa dharkan soo gasho markii aad soo gashatid kadibna kambaniga kugu soo wareeji doona xoogaa kadib waa kan isagoo dharkii soo gashtay oona iyada weydiinaya inuu dharkan ku soo baxayo iyo in kale laakiin waa ku raali gelinaya kadib markii uu soo xasuusto inay qoftan camoolo ahayd intay soo waday waxay keentay meel kambani ah oo iyadu ay lahayd waxaana sii joogay iyada ninkeeda iyo midoo walaasheed ah midkan